بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحديثك سقالات أعو تلقلني بشهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أبي هريرة وحورنا يا حديث كان صحيح نبينا عليه الصلاة والسلام إنه كيري qofkii ishalmaama asagoo sooman oo inuu sooman yahay halmaama ee wax cuna ama wax caba, soonkiisa ha dhammaystirto. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qoodiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waraabiyey, ilaahay baa cuntada siiyey, ilaahay baa cabitaanka siiyey. marka qofkii haddii uu asagoo sooman uu wax cuno ama uu wax cabo uuna halmaansan yahay soonkiisa, soonkiisu ma burayo. marka waxay xadiidkani uuna tusinayaa sida shareecadeena nala kugu fududeeyey, sida nala kugu naxariistay, sida ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu sahalka nooga dhigay. nalooma qaban wixii aan halmaanay ama wixii kama aan u sameynay ama wixii nalo ku qasbay, midna nalooma qabano. xadiid waa tii nabigu uu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam, xadiidka ibnu maajah warinayay: ina allaha qad tajaawaza can ummatii alkhata'a waannisyaana wama stukrihuu caleyh. ilaahay ummadayda wuxuu ka dhaafay oo ka cafiyey gafkii, wixii ay ayagoon ogeyn kama u sameeyeen, wixii ay halmaan u sameeyeen, iyo wixii lagu qasbay intaba saddexdaba. wixii kama oga dhacay oo ay ay gaf u sameeyeen, macnaha damaaha wixii ayaga og ay sameeyeen, wixii halmaan ay u sameeyeen, wixii khata oga dhacay iyo wixii lagu qasbay, ilaahay waa uu u dhaafay. marka haddii qofku asagoo sooman uu wax cuno ama uu wax cabo, ilaahay baa quudiyey, ilaahay baa waraabiyo biyo cabsiiyey, ee soonkiisa ha dhammaystirto uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. qofkaas asagoo ishalmaansan wax cuno cabi. adigana haddaa aragtid qof sooman oo wax cunayo wax cabaya, ha ku qaylin, hadhihin war sooma soo marid, iska jooji, hadhihin. ilaahay maadaama uu quudinayo oo waraabinayo, ka leexo. markuu bagto kabacdi haddaa aragtid dheh warsaasad yeesha, maadaama soonkiisii uu sax yahay. marka taas waxayna tusinaysaa qofku haddii uu wax cuno ama uu wax cabo in uusan soonkiisu uusa burayn. axkaamta xadiidka laga qaadanaya ayaa waxay tahay qofka asagoo wax halmaansan ama wax cunay ama wax cabay, soonkiisu inuusa burayn. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inuusa kuna dambaabeyn, xataa dembi ma gelayo. maxaa yeelay nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam wuu dambaabaya, ilaahay baa qoodiyey, ilaahay baana cabsiyu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. waa ikhtiyaarkiis iyo doorashadiis, wax ku yimid midna ma aha. waxaa laga wadaa maxay tahay ilaahay baa qoodiyey oo wax cabsiyey? maxaa laga wadaa? ficilkan ayaa qofka wuxuu uga dhacay min gayri ikhtiyaar. wax ikhtiyaar la-aan aho ku talagal kumuusa sameyn, ku talagal kuma sameyne, ilaahay baa u qadarayaa laga wadaa. ilaahay ayaa u qadaray oo maalinkaas qofkaas u ogolaaday inuu saan sameeyo. haddii aan ilaahay u qadarin ma uusa sameeyan waxaan, ilaahay waa halmaansiiyey. haddaba waxaa culammadu ka hadlaan, waa ogaanay cunidii iyo cabidii haddii ay kama ku dhacdo, adoon is ogeyn, haddii aada wax cuntid ama aada wax cabtid, soonkaaga waad sii wadanaysaa, kaama burayo. haddaba waxaa isweydiin leh, ninkii hadduu halmaamo inuu sooman yahay ee uu xaaskiisa haddii uu u tago asagoo halmaansan, jimaacaas ama la kulankaas uu xaaskiisa la kulmay, ma wuxuu la mid yahay cunitaankii halmaanka ahaa oo kale?
sida raajixa ah culummadu waxay qabaan intooda badan aljimaacu naasiyan kal akli naasiyan. qofku haddii uu xaaskiisa u tago asagoo halmaansan ee aan ogeyn ee arrintaasi si kama ah ama aan ku talagal ahayn uga dhacdo uusa soonkii xusiisan, soonkiisu ma burayo oo wuxuu la mid yahay asagoo wax cunay ama wax cabay ayuu la mid yahay, asagoo ishalmaansan asagoo wax cunay ama wax cabay oo kaluu la mid yahay. marka waxay culummada intooda badan leeyihiin aljimaacu naasiyan laa yufsidu asiyaam. la kulanka ninku xaaskiisa uu u tagaa asagoo ishalmaansan soonka ma buriyo. waa sidii cuntadii iyo cabitaankii uu qofku cunay oo cabay isagoo ishalmaansan. waxaan isku dardaarmaynaa marka dadka qeyb waxaa laga yaabaa masaa-ishan markii ay maqlaan qayba inay dhan kale uga faa'iidaystaan. waxa aan ogaataa cidda wax kugu leh ma ahan bini aadam, soonka cidda kugu leh ma ahan dad. waxa soonka kugu leh ama salaada kugu leh ama zakada kugu leh ama cibaadaadkao dhan kugu leh waa rabbigaaga jala jalaaluh. haddaad meel inta isku xirtid aada cunto ka dharagtid ama gurigaaga aa hoosta ka xiratid oo xaaskaaga u tagtid, ilaahay waa ku ogyahay. haddaad ku talagal u samaydid ilaahay waa ku ogyahay, haddaad halmaan u samaydidna ilaahay waa ku ogyahay. laakiin waxaa halmaan u samaydid ilaahay kuuma qabanayo, waxaa ku talagal u samaydidna ilaahay waa kuu qabanaya. adigu marka ha isdhihin saasaa la yiriyo iska dhig qof halmaansan. maxaa yeelay beri maalinka qiyaamo markii la gaaro markaasaa war ka dambeeya. markaas ayaa hadda dadkaad iska qaraysaa soo maahan, laakiin ilaahay aa ku og soo maahan. ilaahay maalinkaasuu ku fashilaya yowma tubla saraa'ir. maalinkaasa ceebtii banaanka la keenaya. maxaa yeelay ilaahay baa ka xishoo weyd, ilaahay baad khayaanaysaa. adigu saad isleedahay ilaahay khayaanaad isleedahay, laakiin ma khayaani kartidoo khayaanada dhibkeeda adigu kuu soo laabanayaa. waxaan isku boorinaynaa inaan dadaalno oo soonkeena weliba si aana u dhibtoon aan suxuurano. waa soo qaadana xadiid aan uga soo hadalnay dhowr xadiid weliba suxuurtu fadliga ay leedahay iyo ajarka ay leedahay. waxaan kaloo isku boorinaynaa isku dhiirigelinaynaa inuu qofku maalinkii ramadaanka ahaa uu waxyaalaha shahawaadka ka fogaado, cuntada carfaysa iyo waxyaalaha ududgayay markii laga reebo dadkii khaadimiinta ahaa. hadda dadkaas khaadimiinta ahi ayagu wixiiba sameynayaan, afurkii diyaarinayaan, laakiin sida kale shahawaadka badanaa qofku inuu ka fogaado ayaa u fiican. ilaahay cabsidiisan isku dardaarmaynaa iyo soonkeenna sidii aan ku toosi karno oo ajarkiisa kusii badi karno inaan kusii badinno. wixii soonkeenna naga burinayana aan baranno ka fogaano. wabillaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.